wadamada gartay gobanimadayada garwaaqsaday xornimooyinan gaarugooy geygii kaste guushayada jecel abaal guunahban gaarugu hayaa abal guunahban abaal guunahban gaarugu hayaa wadamada gartay gobanimadayada garwaaqsaday xornimooyinan gaarugooy geygii kaste guushayada jecel abaal guunahban gaarugu hayaa abal guunahban abaal guunahban gaarugu hayaa midku gaasiro guushaada neceb kunta hooseeyo gudkan kala socda garab iyo xigaal gacalaygu tago dhibax kikan iyo kii galaday ogaa midku gaasiro guushaada neceb kunta hooseeyo gudkan kala socda garab iyo xigaal gacalaygu tago dhibax kikan iyo kii galaday ogaa galaday ogaaye kala gaaray dadkani ka gargaarayo ninkii goynayo cadowno gabada gubay xaasidkii koohiya ilmada maanta oo bishu tahay 13 bishan March waxaa magaalada Washington DC soo gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha waxaa airportka Dallas Airport ee Washington DC soo dhaweyn rasmi ah ugu sameeyay dawladda Mareykanka oo halkaas si fiican ugu soo dhaweeyay dabeetana markuu madaar ka soo baxay bulshaweyntii Somaliland ee Mareykanka joogtay oo halkaas ugu timid ayuu madaxweynuhu ku salaamay si fiican ugu soo dhaweeyay taas bay bilow u tahay booqashada ilaa 10 cisho socon doonta madaxweynuhu ku joogi doono dalkan Mareykanka kulamo fara badan oo la yeelan doono dawladda Mareykanka qaybaheeda kala duwan Congress-ka qaybihiisa kala duwan meelo fara badan oo ka hadli doono ay kamid tahay Barita Britole oo ka hadli doono Heritage Foundation oo meel mala curiya ama ra'yi curiya meelaha ugu waaweyn think tanks-ka ugu waaweyn kamid ah waddanka Mareykanka uguna hantida badan dhabahantii meelaha had iyo jeer siyaasadda Mareykanka aad looga dirsana ay kamidana uu ka hadli doonaa marka madaxweynuhu waxaan filayaa in tahay siyaaradiisa mid taariikhi ah Somaliland uu soo kordhin doonto qiimo iyo guul aad u waaweyn anigoo wakiilkii Somaliland ee Mareykanka aad iyo aad ugu mahadnaqaya jaaliyadda ama bulshaweynta Somalilanderka ee Somalilander Americanka ee ku nool waddanka Mareykanka ee isaga yimid daafaha dalkan Mareykanka iyo North America qaarkoodna ay kala ka yimaadeen sida xoog leh madaxweynaha iyo wafdiga halkan ugu soo dhaweeyay siina wadi doona soo dhaweyntooda ilaa iyo inta halkan madaxweynuhu joogo taasoo ku gabagaboon doonta bisha 19keeda in ay madaxweynuhu casho sharafeed isugu yimaadaan bulshada halkaana uu uga jeedin doono hadalkii uu u talagalay inuu kula hadlo bulshada Mareykanka